Assalaamu calaykum. Waxaa jira goobo badan oo qurux badan oo qof walba ku riyoonayo inuu mar uun ku soo dalxiiso. Si la mid ah waxaa jira goobo badan oo khatar ah oo haddii aad tagto naftaada aad ku weyn kartid. Sidaa darteed maanta waxaan kuu soo gudbin doonaa 8 goobood ee ugu khatarta badan dunida. Daawasho wacan. Nambarka koowaad dooxada dhimashada Mareykanka. Hadduu dhulku yahay hoygeenna, dooxada dhimashaduna waa foornada ugu kulul dhulka. Waxay dooxadu dhimashadu haysataa rikoorka heerkulka ugu sarreeya ee abid laga diiwaangeliyey meeraheenna. Darajada kuleelka waxa uu gaarayaa 134 Fahrenheit. Si kastoo aad u adag tahay kuma noolaan kartid dooxada dhimashada, saacado gudahood ayaad ku tabar dhacaysaa. Biyo la'aan waxaad ku noolaan kartaa 14 saacadood oo keliya. Sidoo kale waxaa jooga xayawaano khatar ah sida masaska ku nool saxaraha, dubqallooca, iyo xayawaano badan oo aan ishaada qaban oo aad keliya kula kulmi karto dooxada dhimashada. Dooxada dhimashada cidna ma cafiso. Nambarka labaad saxaraha Danaakil Eritrea. Saxaraha Danaakil waxa uu dhow yahay xuduuda Eritrea iyo Itoobiya ay wadaagaan. Heerkulka oo inta badan kor u kacaya gaaraya ilaa 120 digrii. Waxaa jira diyaarado ku daadiya gaas suna. Way adag tahay in la qiyaaso dhul aad u foolxumo badan marka la eego saxaraha Danaakil. Dadka badigiis waxay u qaadan lahaayeen meeshan argagax leh naarta dhulka. Laakiin weli waxay soo jiidataa halyeeyo badan oo geesiyaal oo ku kala nool daafaha dunida. Xasuusnow kaliya inaad booqato saxaraha Danaakil adigoo u haysta khibrad ama dad yaqaana. Adigoon u lahayn wax khibrad ah tagista halkan waa ka mamnuuc. Nambarka saddexaad buurta Washington Mareykanka. Buurta Washington waxay haysataa rikoorka dabaysha ugu dhaqsiyaha badan adduunka. Xawaaraha ugu sarreeya ee dabaylaha laga diiwaangeliyey halkan waa inay dabayshu jarto 203 mayl saacadiiba ama 327 kiiloomitir saacadiiba. Si kastaba ha noqotee ma ahan dabayshu walaaca keliya ee aaggan uu leeyahay. Sidoo kale heerkulka qabowga ayaa hoos u dhici kara weliba ilaa -40 digrii. Sidoo kale waxaa jiro baraf culus oo si daba joog ah ugu soo dhacaya buurta. Sababahaas ayaana ka dhigan buurta Washington inay tahay meelaha ugu khatarta badan dunida. Inkastoo buurtu dhererkeedu hooseeya uu yahay kaliya 6288 feet, haddana waa mid ka mid ah meelaha ugu dhimashada badan dunida. Nambarka afaraad Singabang Volcano Indonesia. Tani waa falkaano si daba joog ah ugu dhacda jasiirad ku taala dalka Indonesia oo lagu magacaabo Sumatra. Barakac ayaa halkan ka dhaca marar badan. Dad badan ayaa ku noolaada hoy la'aan maadaama ay ka soo tagaan guryahooda. Magaalooyinka iyo tuulooyinka u dhow gebi ahaanba waa la daboolaa. Sanado badan ayayna sidaasi dhacday sida sanadihii 2010, 2013, 14 weliba 2015. Qaraxii ugu dambeeyay ee falkaanaha waxa uu ka dhacay 27 February 2016. Qarxintaas waxaa ka dhashay daruuro badan oo gaas ah, dhagaxyo iyo dambas. Mana jiro qof ku nool jasiiradaas oo garan kara waxa dhici kara beri. Nambarka shanaad jasiiradda Masaska Brazil. Iyadoo lagu tilmaamo meelo ka baxsan xeebaha Brazil, jasiiraddan ayaa si weyn loogu aqoonsaday inay tahay meelaha ugu halista badan dunida. Sababtuna waa wax sahlan. Meeshan waxaa ka buuxa mid ka mid ah abeesooyinka ugu halista badan dunida. Baarayaashu waxay qiyaasaan in qiyaastii 5 masas oo mitir labjibaar ay ku nool yihiin jasiiraddan. Waxaa jira sheekooyin dhowr ah ku saabsan dad badan oo u dhintay ugaadhsi ay u geysteen masasku. Mid ka mid ah sheekooyinkaas ayaa lagu xasuustaa goolhaye masasku ay weerareen kadibna u dhintay. Nalalka jasiiradda Masaska ayaa si otomaatig ah isu shaqeeya tan iyo geeradii dhimashada ninkaas. Dowladda Brazil ayaa ka mamnuucday booqdayaashu inay cagtooda dhigaan halkaas. Marka lixaad dooxada dhimashada Kamchatka Russia. Jasiiradda Kamchatka ee ku taala bariga fog ee dalka Ruushka waxay leedahay sidoo kale dooxada dhimashada u gaarka ah. Waxay ku taalaa meel aan ka fogeyn dooxada caanka ee Geyseris. Dooxadan waxay leedahay sun khatar weyn ku ah wax kasta oo nool. Dhirta iyo xayawaanka ayaa si dhaqso leh u dhinta. Iyadoo dadku si dhaqso ay u bilaabaan inay dareemaan caafimaad la'aan, qandho iyo qabow daran. Nambarka toddobaad Pinky Atoll jasiiradaha Marshall. Ku lumayba jasiirado badan dhexdooda. Jasiiradduna waxay u muuqataa meel qurux badan. Miyaanayna ahayn? Haa way tahay. Laakiin Pinky Atoll waxay hoy u ahayd barnaamijyo badan oo tijaabinta nukliyeerka ah oo u bedelay jasiiraddan quruxda badan dhul qalalan oo ka buuxo shucaaca sunta nukliyeerka. Dadka deegaanka ayaa lagu qasbay inay ka baxaan guryahooda oo xitaa ilaa iyo maanta waxay weli khatar ku tahay noolaha nool. Heerka shucaaca aan caadiga ahayn ee halkan laga diiwaangeliyey ayaa sababi kara kansar. Nambarka 8 boqortooyada maroodiga ee Chambori, Thailand. Boqortooyada maroodiga ama beerta yaxaasyada oo ku taala dalka Thailand oo ay tagaan dalxiisayaal badan ayaa dalxiisu waxa uu kireystaa meel xirmooyin yar ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha
si ay u soo booqdaan yaxaasyada. Banaanka waa alwaax khafiif oo dheelitiran oo ka samaysan fuusada caaga kuna wareegsan yahay shabaq yar. Xarig ayaa sidoo kale saqafka sare ugu xiran. Dadku waxa ay galaan gudaha xirmooyinkaas waxaana la siiyaa ulaha kalluumaysiga si ay u quudiyaan yaxaaska. Waxay adeegsadaan hilibka lo'da. Waxay garaacaan dhigaha yaxaasyada si ay ugu soo jeediyaan cunahooda. Cayaanka ayaa mararka qaar iskaga soo booda si ay u qabtaan hilibka loo wad yaxaasyada. Bal qiyaas haddii adigoo saaran xirmadaas yar aad fakato biyaha aad ku dhex dhacdo. Miyay jirtaa cid kaa soo saari karta adigoo bad qaba? Jawaabta adiga ayaan kuu daayay.